بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهرين إلهي باكم هاتسن نمعوين كلا دواني نسيي نلاش أو ظروف بدن أو يعقبات بدن له ينوفذ ذيي إلهي مرول بيننا وما حد نقنا واجبة مرلباتك وعن شعل هاي ما أنت وحن حلقة أنمي إنه soo kormeerno mashruucan biyo xidheenka weyn halkan laga samaynayo ee ay maalgelisay dawladda Imaaraadka Carabtu in aanu halku marayo aanu xogaal u noqono isagoo gabagabo sida aynu aragno ku dhow mashruucan runtii waxaan jecelahay inaan u mahad celino ugu horeyn dawladda Imaaraadka ee walaalaha aynu nahay saaxiibka nahay ee mashruucan maalgeliyay mar labaadka shirkaddii mashruucan fulinaysay oo khubaradeedina la joogto ayaa iyagana mahad celinayna mashruucan shirkadda qandaraaska qaadatay marka laga tago waxa iyadana dhinac kala socda oo dawladdu ay laba dhinac ka ilaalinaysa xukuumadda Soomaaliland iyo dawladda Imaaraadku khubaro madax bannaan oo mashruuca tayadiisa eegaysa mashaariicdana waa in dad maamula oo kormeera oo eega halkay marayaan baa loo sameeyaa oo ka madax bannaan shirkadda wadda taasna inagana injineero inoo jooga oo yimaada iyagana injineero ayaa dawladda Imaaraadka u ilaalinaya dawladda Imaaraadka Carabtu waxay ka mid tahay dawladaynu saaxiibka nahay Soomaaliland ka caawiya mashaariic badan mustaqbalkana kuwa badan inaga caawinaya waxa qorshaha ku jira sad dhaamkan marka la dhameeyo laba kala la dhiso oo laga dhisi doono meelaha ku haboon meel la sahamiyay oo la qorsheeyay meel ay ka mid tahay duleedka magaalada Laascaanood meelina ay tahay meelaha deegaanka Berbera eeriyooyinka dooxyada ku soo dhacaan dhaamkan wax badan bayna tari doonaan waxaynu biyo inoo qabanayaan dhibaatada in haysatay abaaraha maanta waxa weeye ilaahay dee roob ina siyaa laba waqti fara badan biyo xoog laba badeena gala waxaynu mujtamacan ka faa'iideysan karin muddada aynu jiray muxuu ahaay biyaha soconaya ummadda horumarka taqaana ama farsamada iyo xirfadaha taqaana way ina la yaabtaa markay yimaadaan silaca iyo baayaalka iyo haraadka aynu ku noolay iyo biyaha ina dhaafa dad inaga biyo yar ayaa inaga beera wanaagsan oo inaga tacab badan waxaan u baahanay umadahan inaynu horumarno inaynu caqligeena iyo kordhino inaynu xirfadaheena kordhino inaynu qorshe abaaraha aynu kaga baxno u samaysano oo sanad walba calaacal iyo cabatin iyo baryo daaynan ku noolaan annagu waxaanu xukuumadan xoog saaraynaa aanu dalkan qorshe u samayno oo abaarahana maanta wuxuu ummadda la tari karo caawimo iyo gurmad degdega in la siiyo dhinaca kalena in qorshe lagaga samato baxo biyo la'aanta aynu diyaarsano qorshahaas waxa ku jirta qorshaha 5 sano ee qarankan waa mashaariicda ugu waaweyn biyo xidheenna in la sameeyo iyo ceelal dhaadheer biyo xidheenadu ceelasha way ka faa'iido badan yihiin way kharash badan yihiin waxaynu u baahannahay inaynu kula ciirano oo ina maalgelisa mashaariicda sanduuqa horumarinta Soomaaliland iyo mashaariicda wadamada saaxiibka aynu nahay Carbeed waxaanu maanta kula ciirsanaynaa inay naga caawiyaan dhaamamka dalalka xukuumadda Axmed Siinaayo waxay xoog saartay wadamada Carbeed inay saaxiibada aynu ka helo Carab waxay inooga iman jiray intii aan xukuumaddani talo haanidin nima shimbiro doonaya ugaadho meelaha soo mara ayaa inooga iman jiray ama iskuulo yaryar inoo maalgeliya waxaynu u baahannahay relief uma baahnin waxaynu u baahannahay dib u dhis baynu maanta u baahannahay iyo ka hortag aafooyinka waxaanu aaminsanahay inaan wax weyn ka bedelay xiriirka dawladaha Carbeed maanta intii xukuumaddani jirtay mashaariicda la inoo qabtay maynaan qabsan karnay been maaha been iskuma maaweelin karo awooddeena way koobantay si kastoo dakhliga aanu kordhino waxaanu nahay ummad waxeedu aanu af iyo gacan dhaafi karin marka waxaa ka mid ah dalka Kuwait wuxuu ka filiyay 15 milyan oo deeqabu ina siiyay maanta waa ka garoonkeeni garoon caalami ah garoonada geeska Afrika kuwa maanta ugu muxuu ahaay ugu haybada wanaagsan buu ka mid yahay waxay naga maqal maanta terminaal wanaagsan oo weyn iyo halkaas aynu kala sii kordho dishalay halka ma inaan joogin
diyaaraduhu maanta ninka ka soo duulaa caawa ka soo duulaa London wuxuu subaxii ka qoraacday gurigiisa may jiri jirin sidaas waxa lagu soo baayaari jiray muxuu ahaa ama berbera laga degi jiray ama waxa laga degi jiray Djibouti casarka halka la yiman jiray waxa keenay horumarkaad dadaan xoolaha la inagu caawino aynaan gelin oo qorshe weynaan u samayn oo la bariye tagin meynaan heleen waxa kamid iskuulka maanta weyna ay taamka isagana dhowr iyo 10 milyan ku baxeen yaa kamid ah xirfadda iyo farsamada iyo beeraha intaba abuuray وهم هذا غير دولة الكويت إنه ورانا دولة الإمارات كلها والله مد مشروع 9 مليون باكو بحي إنه هذا شغله كوبحية كوا كنا مدوا بين تاسع كوبحية والعقوي مركز اللي يسوقيه سيدو كله مصر خي حوالين اللي جو قليل حولنا ولون بينو قادنا أو كسي اللي بعطوه بطة وحيا ما أنت يسنق بجمع مجال بربرك كجدو ودولة الإمارات إنه رستي مشروع كهلا مدا ويسوقنا إلى 6 مليون كوكعية وحاس أردمي wax saaxiibtinimo iyo hilo weyn ku keenay waxaan rabnaa anagu dalka inaanu saaxiibo u abuurno siyaasadayadu waxa weeye in saaxiibo badan Soomaaliland yeelato oo caawiya oo dhaqaalaha ka taageera oo siyaasadda ka taageera nin waliba intuu jaal leeyahay ayuunbu muxuu ahaayay ayuu xoog yeeshaa saaxiibadeeni hore anaga siyaasadayadu waxa weeye saaxiibadaynu hore u lahayna waa ku mintidayna waa ku faraadaygeena qubi mayno haday tay midowga Yurub dalka Ingiriiska muxuu ahaayay wadamada igad ee saaxiibadeen Djibouti Ethiopia wadamadaas oo saaxiibtinimadooda waa adkeynayna kuwa kalena waa soo kordhayna saaxiibada inaga la wada saaxiiba inana danaheeniyo danta guud ummadda ayaanu anagu xoog saarayna oo muqaddim cid walba ka wax walba ka marka labaadna danaha saaxiibadeedna waynu ilaalinayna dunidu way isku danaysataa dunidu dantu dhinac qura kama socoto tuliimada iyo wanaaguna dhinac kama socdo waa in kooban intay ka socon kartaa anagu mabda aanu aaminsanay iyo xeeladda iyo xirfadda siyaasadeed aanu aaminsanay ee madaxweyne Sinaayo uu wadaawata isagoo wasiir buu ku soo waday sida oo maanta berbera ku dhisay oo waxa berbera la dugsanayo uu meel mariyay maanta dalkan waa ka madaxweyne waxa weeye xikmad Ingiriisiga waxay tahay scratch my back I'll scratch yours dhabarka iyo xoq aniguna aan ku xoqo halku dhigaasi wuxuu daaran yahay waa isku danays iyo wax isweydaarso dantu ku dhinac qura kama socoto inagana waa inaynu danaysanaa oo wax aynu danaha ummadeena iyo qarankeena aynu ka helaa iyagana waa inaynu saaxiibadeen danayna weydiisanayaan Ethiopia danayna ku qabtaa inana danayna ku qabnaa dantu dhinac qura kama socoto dalka Imaaraadka danayna ku qabnaa danayna waa ka doonaynaa iyagana danay doonayaan waxa weeye ragga maanta ka soo horjeeda horumarka maalgashiga saaxiibada cusub aragtihan iyo mabdahan baan soo kala horjeednaa iyana waxay doonayaan inay didiyaan wixii dalkan aan u soo shukaameynay anaguna waxaan doonaynaa aanu saaxiibo badan keeno soo halawaday deeq Allah ku afado tamaaleen waxaan dalkan u dhignay siyaasad saaxiibo lagu kasbo ayaanu wadnaa dabino ayaanu danta guud ee qaranka u dhigaynaa dabinadaan u dhigayno sakaara ku soo xirayn mayno maalgashadayaal saaxiibo siyaasadeed ayaanu soo dabayna oo dalka dantan u soo dabayna dabin maroodi baanu dhigaynaa maroodiyaashu ku soo dhacaan dalka dhaqaalaha leh kuwa xoog leh kuwa aynu curfiga iyo caadada wadaagno kuwa aynu dariska nahay kuwa aynu aragtiyaha siyaasadeed meelaha qaarkood waxa weeye mabdi'iyan ayaan siyaasiyan baanu kala aragti duwanahay annaga siyaasadaydu waxa weeye in dalkan saaxiibo aanu keenno maalgeliya kaas aynu kasbano iyagana dana siino qarin mayno danaanu siinayna ha waxa weeye laakiin waxaan leenahay muqaabil masaalix dana kale aanu weydaarinayna waxa weeyaan taariikhda ummadan iyo inta aqliga fayooba ka marxaati furi doonta labadeeda qolo ka tumaati iyo tilmaan iyo talo fiican waxaanu leenahay dalka Imaaraadka oo mahadnaqaynaa hadda ceelal bay ina siiyeen aanu dhawaan qodi doono oo ceelal dhaadheera oo muxuu ahaayay qaarkood ilaa 450 mitir la qodi doono ayaa hadda dawladda Imaaraadka ina siisay ka ugu horeeyo waxaanu ka doonaynaa haddii ay baydno magaalada Baligubadle waxa kamid ah magaalada la yiraahdo muxuu ahaayay Dharkeengeeyay dhulkaas oo dhan waa ceelal u baahan ilaa 450 mitir in la qodo waxa weeyaan dalka Kuwait waa la mid Sacuudiga waxaanu doonaynaa xiriirkiisa kordhay iyo dalka Qatar waxaanu ku soo ururinaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dhammaan shaqaalaha ka shaqeynaya ee xirfadda ka bartay
dee intaasaa faa'iido ugu yar 150 muwaadin baa maanta sanad ka shaqeeya halkaa oo mushahar iyo nolol uga xaadira waa faa'iidada ugu yar ee mashaariicdu leedahay xirfad iyo aqoonna way ka baranaya waa kiibka injineer ka warramay inay mashaariic badan ay berito ay muxuu ahaayey ka shaqayn doonaan kuwan la mida xogaal baan ahay anigu markii aan dhisaynay runwayga dhabaha dayuuradaha garoonka cigaal waxa ay inoo yimi khubaro weligan wadda asfalana maynaan samayn waxa ugu horreeyey garoonka caasimadda taaynu ka samaynay waxay keentay in magaalooyinkeenni maanta asfalana waddooyina aynu samaysano oo warshadaha aynu ku dhiirano dhallinyaradii ku tababarantay ayaa maanta ka wada shaqaynaysa shaqaaleynu xirfad u baahan yahay maanta waxaynu xoojinaynaa waxaanu dhiirigelinaynaa dhulkan la beero xooli waa kuwa inaga baxaya waynu xoolaha si casriyaysan wixii soo dooga u dhaqnaa oo sidii hore ka bedelaa waynanu beera tabcanaa buurahaasaa wax laga beeraa yamani inagama dhul wanaagsan inaga dhul xun haddana buurahay wax ka beeraan waa xirfad iyo aqoon bini aadamku kuma dhasho qof waliba isagoo qaawan oo aan aqoon maran buu dhashaa waa tababar iyo mahaarad weeye ra-iisul wasaare waddanka etoobiya waa u mahadnaqaynaa mudane xaylo maryan desaaye kulankii dhoweydaanu la yeelannay wuxuu noo ballan qaaday inuu naga caawiyo khubaro iyo aqoon-yahano beeraha dadka muwaadiniintaa bara oo ina tusa halka roobka ku yar yahay waxa fiicane ka bixi kara ee tayada leh wuxuu noo ballan qaaday inuu inagu caawin doono khubaro dhismaha inaga caawiya waddooyinka inaga caawiya waa dal inaga weyn population fara badan aqoon iyo jaamacada leh inuu kordhin doono buu noo ballan qaaday muxuu ahayey deeqda waxbarashada oo sanadkii dhowadaanu 100 ka helay ilaa 2,000 oo arday in sanadka soo socda ee dabayaaqada sanadka inuu ina siinayo buu noo ballan qaaday aad baan ugu mahadnaqaynaa waa walaaladeen iyo jaalkeennii hore jaalalka cusubna waxaanu ka sugaynaa waxa iyo wax ka weyn aad baa u mahadsantihi